xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee Ucud halkan xarunta dhexe xisbiga Qudus kuley magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay ayaa ka hadlay suxufiyiin dhawaan weer lagu geystay magaalada Hargeysa isagoo xukuumadda ugu baaqay in si dhaqso ah wax uga qabtaan arrintaasi dhinaca kalena xogayaha guud waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed kaasi oo ku saabsanaa kala wareysiinta doorashooyinka ururada iyo tan madaxtooyada isagoo sheegay xogayaha guud ee xisbiga Ucud in ay doorashada madaxtooyadu tahay tan horeysa iyadoo la raacayo xirfadhiin maalmahan u dambeeyay waxa dhacayay ama bariyahanba arrimo qarankan aan u fiicnayn dadka ku nool iyo dalkaba aan u fiicnayn baa dhacayay oo ay ugu dambeysay tii maalintii dhaweyd ka dhacday halkan Hargeysa badda cas waliba arrintaasi waanu cambaaraynaynaa waana arrin fool xun ilaa imikana waxaanu ognahay inaan waxba laga qabanin oonay bilayskuna ka hadal halkaana khasaare ayaa ka muuqday oo dhacay oo social mediaha lagu faafiyey oo burbur hantiyeed iyo tu laga qaatay bale diinteenna islaamka iyo dastuurka Soomaalilandna waxay damaanad qaadeen muwaadin kaste ama shakhsi kastoo ku nool Soomaaliland amnigiisa inay ilaaliyaan waxaana uga mas'uula kolba xukuumadda markaa joogta iyo bilayska iyo ciidanka qaranka ayaa uga mas'uula sida awgeed waxaanu ka codsanaynaa ciidanka qaranka iyo bilayska iyo hay'adaha amniga cid kastoo khusaysaba in arrinta degdeg wax looga qabto taasi haddaan intaa ku dhaafo hal qodob oo kale aan ku yar darayaayo safarka madaxweynuhu waa oray manaanaan kritel garayn markii horeba annagoo og in ay jiraan dhaliilo laga tegay hay'adihii maxaanku dhahdaa qarankani uu ka koobnaa qayb ka mid a sida baarlamaanka oo kale xisbiyada qaranka inay raacaan baa arrinta noocaas oo kale marka loo baxayo way heer caalami oo qaranka Soomaaliland dee arrin u fiican bay tahay oo talaabo hore loo qaaday bay annagu laakiin cadowga Soomaaliland anagoo og ee faraha badan leh arrintaasi waanu soo dhaweynay waanu ku taageernay manaanaan ka hor iman laakiin waxa dhacay habeen dhaweydoo uu maxaanku radaa lagu qabtay xaflad ay qaranka Soomaaliland oo dhan ka soo qayb galeen xubno ka tirsan wafdiga uu madaxweynuhu hogaaminayay inay u hadleen si aanu ka biyo diidnay waxaa la yidhi seeftu galka mana leega loomana tulin arrintaasi waxay ka bilaabeen maba habboona inaan magacyadooda mushkilad maba laha in magacyadooda sheego wax mushkilad ma lehe waxay ka bilaabeen xeer 14 bay yidhahdeen ayay soo hadal qaadeen 2011 xeer 14 2011 na dee wuxuu qeexayay bay haddana ag mareen